وعشر كيني تطبع الله وينوسو تشيدين دونو الشيخ عبد القادر خير علمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يعجزه شيئا في الأرض ولا في السماء، لا راد لفضله ولا مبدل لكلماته ولا معقب لحكمه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحلقدي لباد كساب سنة الدعاء إيو فضل جيدا إيو شروطه هذا آدابت هذا إيو موانع الدعاء إيو ضدك أود إلهي سبحانه وتعالى الدعاء دود آن سوء لنن iyo waxay ku gaareen ama ku kasbadeen in ay ka mid noqdaan kuwa aan ilaahay ducadooda soo celinin. sidaas darteed waxaynu ognahay in ay ducadu tahay cibaado uu ilaahay ka dhigay, cibaado uu qadarkii uu qadaray dib uga celiyo ama ku joojiyo ama ku bedelo. ilaahay huwa alqaadir, isaga maqaadiirtii wax allaala wixii bani aadamka jin iyo insi iyo makhluuqaadkiisa oo dhan wixii ku dhacaya ilaahay isaga xukuma. balse ducadii wuxuu ka yeelay in shay uu qadarkii uu qadaray inuu qof ku dhaco uu ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarkaa mararka qaarkood ku bedelo oo mid kale kaga dhigo, inuu joojiyo ama in uu maxay ahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarka u fududeeyo xataa mararka qaarkood qofkii uu u qadaray wax inay ku dhacaan khayr iyo sharba. waayo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, sida laga soo wariyey thuumaan mawlaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء. وحولي نبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث الصحيح: عمرك وح كردية وأن برك هين بر الوالدين هين مجرته، قدر كان وح عليا وأن دعاء هين مجره. مركا الدعاء قدر كي إلهي قدري أي علسه. waxyaabaha ugu wanaagsan ee ilaahay uu ku manaysto adoomihiisa waxa ka mid ah inuu waafajiyo inuu qofku noqdo mid ducada laazima, mid ducada baraysta, mid ay ducadu ka mid noqoto cibaadooyinka mar walba ku foogan yahay. rasuulkeenuna calayhi afdalu salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay uu yidhi: man futixa lahu minkum baabu ducaa'i futixat lahu abwaabu raxma. qofkii idinka mid ah ee ilaahay u furo albaabka ducada ama ilaahay ku ilhaamiyo in uu noqdo qof duco badan oo mar walba ilaahay barya fi rakhaa'i wa fi saraa, marka uu dhibaato ku jiro iyo markuu wanaag ku jiro labadaba mid ilaahay barya qofkii uu ka dhigo, waxa weeye qof ay albaabadii raxmadda oo dhammi ay u furmeen buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. والنبي كدر حديث كاسوري: وحلا ويديستو إلهي وكو عليهي، وحلا ويديستو وكو عليهي إن عافية إن صحة لو ويديستو. دعاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوى حديث كاسيو دوحولي: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. ducadu waxay wax ka tartaa wixii qadarkii ilaahay ee soo degay macnihii ee dhacay iyo qadarka aan weli soo degin ee soo socda, labadaba waxbay ka tartaa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam. facalaykum cibaad allahi biducaa, waxaan idinkula talinayaa addoomihii allow ducada inaad laasimtaan buu yidhi rasuulku
sala allahu calayhi wasalam. sidaas darteed qofkii laasima ducada ee ka dhigta cibaado cibaadooyinkaa tasbiixda iyo taxmiidda iyo takbiirta ay la mid ah ee mar walba duco ilaahay baryaya inuu ama wax ka najeeyo ama waxuu doonayo inuu siiyo, waxa weeye qofkaasu wuxuu ku biirayaa dadka uu marka ay baahdaan ee ay dhibaato ku jiraan ilaahay markay baryaan ducadooda uu aqbalo, siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi: man sarahu an yastajiiba allahu lahu cinda ashadaa'id falyukthir adducaaa fi rakhaa. qofkii jecel in uu ilaahay u ajiibo oo ducadiisa aqbalo markay dhibaato la kulanto waa inuu ka mid noqdo kuwa ilaahay barya markay rakhaa, markay baraaraha iyo barwaaqada iyo wanaagga dhinac walba, caafimaad iyo ubad iyo lacag iyo mid walba ah markay ku jiraan, kuwo ilaahay barya waa inay noqdaan. markaa maalinta ay dhibaato la kulanto baryadoodii ilaahay wuu aqbalayaa buu yihi nebigu calayhi afdal asalaatu wassalaam. ambiyada iyo mursaliinta oo ah kuwo og arintaas ayaa sidaynu horeba usoo aragnay casharkii hore waxay ahaayeen kuwo duco badan oo laasima ducada oo baraysta, kabacdina markay dhibaato la kulanto ee ay ilaahay baryaan waxaynu aragnay in waxyaabo aan caqliga gelin ay la kulmeen ambiyada iyo mursaliintu, balse ducadoodii ay falayeen markay ku jireen alrakhaa darteed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ducadii uga aqbalay. kuwaana waxaa ka mid ah nebiyullaahi zakariya calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaatu wassalaam, oo sidaynu ognahay ilaahayna qur-aanka inoogu sheegay gaboobay, xaaskiisii gaboobeen iyagoon ubad dhalin, dabeetana uu ilaahay baryey, allana inoo sheegay inuu وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إنه يري إلهي ربي إني وهن العظم واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. إنه الرمهاس إلهي وعوضي إنه الربين إنه كتغو الدنيا إساق أن أبدالين أن ذريت كتغين. إلهي محيري سبحانه وتعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وإلهي وحيوان وجوابنا ووحن نصيني إلما الله يراهضه وإلهي وبحيي يحيى وأصلحنا له زوجه مركخرة gabadhiisii aan xaaskiisii aan waxba dhalayn ayaanu ka dhignay mid wax dhasha. wawahabnaa lahu yaxya, ilma aanu yaxye u bixinay ilaahay u magacaabayna waanu siinay. sababtu maxay tahay? innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat, waxay ku tartami jireen, waxay u dheerayn jireen khayraadka. wayadcuunana ragaban warahaba, waxaanayna baryi jireen iyaga oo ilaahay wixii gacantiisa ku jira damacsan, raagibiin ah, isla markaana raahibiin ah, oo dhinacna ilaahay wixii gacantiisa ku jira ka raadsanaya oo u tartamaya oo rabo inay u dheereeyaan, dhinaca kalena raahibiin ah ka cabsanaya cadaabta iyo cadhada iyo maxay ahayd ciqaabta ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxaa ka mid ah oo kale nabiyullaahi yuunus calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaatu wassalaam, oo aynu ognahay inuu nibiri liqay oo nibirigaas uu calooshiisa ku jiray 3 mugdi oo kala sareeya: mugdigii caloosha, mugdigii biyaha iyo mugdigii habeenka markuu habeenku yimaado, meel uuga baxona aan garanaynin. inuu ilaa markii hore ilaahay baryi jiray, markan ay dhibaatadaas la kulantay iyo weliba aan ku dare aasidii caloosha ku dhex dabaalanaya, inuu ilaahay baryey subxaanahu wa tacaala. ilaahayna uu inoo sheegay inuu yidhi: fanaadaa fi الظulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min الظaalimiin. ducadaa inuu ku ducaystay fanaadaa fi الظulumaati, dulumaadkii aynu sheegnay 3 ahaa
dhexdoodii ama gudahoodii inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sheegay inuu ku ducaystay oo weliba uu ilaahay inoo sheegay haddii aanu markiisii hore ka mid ahayn falowlaa annahu kaana min almusabbixiin lalabitha fii batnihi ilaa yowmi yubcathuun haddii aanu markiisii hore ahayn kuwa musabbixiinta ilaahay u tasbiixsada ilaahay u dikriya ilaahay barya ilaahay u ducaysta haddaanu ka mid ahayn halkaasuu ku jiri lahaa ilaa maalinta qiyaamaha laga gaadho balse muxuu alla yidhi fastajabnaa lahu wanajaynaahu min algami wakadalika nunji lmu'miniin waan u jawaabnay buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wax allaale wixii gami iyo hami iyo tabardaro iyo maxay ahayd gargaar la-aan intiiba waan uga maxay ahayd waanu ka faydnay buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wakadalika nanji lmu'miniin qof allaale qofkii mu'min ah ee raadkaa u raacay nebiyullaahi yuunus raaca ee sidiisa ka mid ahaada kuwii marka hore ilaahay u tasbiixsada kuwii ilaahay marka horey rakhaa iyo badhaadhe ku jiraan ducaysta maalintay ilaahay u baahdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wakadalika nanji lmu'miniin buu yidhi subxaanahu wa tacaala sidoo kale waxaynu soo aragnay in aynu markaynu ka hadlaynay ayuub calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmatan min cindina wadikraa lilcaabidiin waa raxmad xagga yaga ka timid oo aanu ugu naxariisanay ayuub markuu ilaahay ka fayday cudurkii haystay ubadkii uu ka qaaday haddii alla yidhaahdo maxay ahayd maalkii uu ka qaaday intiiba ilaahay wuu u soo celiyo wuxuu yidhi raxmatan min cindina baanu ugu soo celin wadikraa lilcaabidiin iyo xasuus kuwa ilaahay cibaadadoodu badsada in ay sidaasu ku dhacayso iyagana haddii ay raadkaa nebi ayuub raacaan allahu subxaanahu wa tacaala huwa musabibu اlasbaab wa mufarij اlhumuum wa kaashif اlghumuum ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba waa kii isagu maxay ahayd sabab u yeela waa kii hamiga iyo gamiga iyo wax allaala waxay dhibaato bani aadamku marayaan waa kii ilaahay ka saara wey arrimahaasu aynu soo aragnay uma aha gaar kuma aha ambiyada oo keli ah iyo mursaliinta balse waxa weeye sidaynu iminkaba soo sheegnay wadikraa lilcaabidiin wakadalika nunji lmu'miniin ilaahay wuxuu ina xasuusinayaa qof kasta oo mu'min ah oo raadkooda raaca in uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ee marka horena sidaynu sheegnay falowlaa an kaana min almusabbixiin haddii aanu ka mid ahayn nebi yuunus kuwa marka hore ilaahay u dikriya ee u tasbiixsada ee ka ducaysta ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaanu ka mid ahayn ducadaa malaa lagama aqbaleen marka qofkii kasta ee sidaas ah ee raadkaa raaca ambiyada iyo mursaliinta iyo saalixiinta iyo awliyaa ullahi tabaaraka wa tacaala ilaahay wuu ka aqbalaya waxaynu ku gunaanadaynaa qisadan ka dhacday bakistan muddo aada u dheer ka hor nin waxaa jiray dhakhtar ah oo la yidhaahdo hishaam oo ah dhakhtar specialist ku ah cudurrada ku dhaca muruqyada oo dalka caan ku ahaa iyo dalka dabadiisaba inuu cudurradaas dadka adduunka ugu wanaagsan ka mid yahay ee daweeya dabeetana mu'tamar buu doonay inuu ka qayb galo magaaladii aanu joogin ee bakistan ka mid ah diyaarad buu raacay diyaaraddii markay in yar socotay ayaa ilaahay duufaan kiciyey ku kalifay diyaaraddii inay airboortka ugu dhow ku degto markii diyaaraddii laga soo baxay ee ilaahay nabadgeliyey ayuu markiiba cararay oo wuxuu rabaa inuu mu'tamarkaa berri ka gaadho wuxuu tegey diyaaradihii meeshaa taxnaa xafiisyadoodii mid walba wuxuu weydiiyey saacadda ugu horeysa ee uu diyaaradu raaci karo magaaladaas qoladii ugu soo dhaqsaa badnayd waxay yidhaaheen duufaan baa jiro oo 16 saacadood ka bacdi unbay diyaaradda labaad kacaysa sugi kari maayuu yidhi wuu la murmay qolo kale u tegey bahalihii diyaaradihii oo dhan mid walba maray aakhirkii waxay ku yidhaaheen haddayba aad tegayso magaalada heble 3 saacadood unbay jirtaa gaari karayso oo maxay ahayd gaariba ku tagday adigu berri waad ka gaadhaysaa
sidii buu sameeyo gaarigii buu karaystay dabeetana duufaankii wuu ka sii darayba hilaac iyo onkod iyo dabaylo aan maxay ahayd ilaahay un qiyaasi karo ayuu noqday intuu jidka ku jiray wuu asqoobay meel uu marayuu garan waayey habeenkiibaa u dumay dabeetana markuu naftiisii u yaabay ayaa wuxuu arkay wadada agteeda buulcaws yar ama baybay yaroo iftiin ka baxayo faynuus yari ka baxayo halkiibuu ku leexday albaabku waa iska furan yahay wuu garaaco islaan curyaan ah oo fadhidaba ay tidhi adiga arkay albaabku waa furan yahay iska soo gal wuu galay wuxuu yidhi telefoon meelaan ka diro ma helayaa waxay tidhi sidaad xaggee caqligaagu jiraa meeshaad joogto miyaanad arkaynin in aan laydh iyo telefoon midna jirin waa berigii aan mobilkani jirin wey ninkii hamigiisa iyo maxay ahayd qamigiisa wejigiisa markay islaantii aragtay ayaa waxay ku tidhi xaggeed u socotaa arrintiisiibuu u sheegay waxay tidhi waxba ma lehe iminka dabaylaha iyo duufaankaa socda meel la tegi kari mayside koob shaaha aan kuu kariyo iska cab waxyaro cunto ana aan kuu sameeyo waagu markuu baryana ilaahay subxaanahu watacaala dariiq buu kuu furi doonaa halkiibuu shaahi iska cabay islaantii markay cuntadii usoo dhigtayna salaad bay bilowday way tukataa 2 ragcadood way ducaysataa ilmaha yar waan idiin sheeka dhaafay waxay tidhi ilmo yar baa ag jiifa markuu u galay dabeetana markay 2 ragcadood tukatoba intay ducaysato ayay ilmaha sidaa u yara ruxruxdaa way tukataa way ducaysataa ilmahay ruxruxdaa markay intaasoo ragcadood tukatay buu mar dambe yidhi maxaad ilmaha u gilgilaysaa waxay tidhi ilmahan waa ilmo rajay ah oo agoon ah aabbihii hooyadiiba anaa u ayeeyaho way dhinteen waxa ku dhacay cudur aanu dhinacna u dhaqaaqi karayn halkaasunbuu jiifaa bal inuu neefsanayo unbaan eegayaabay tidhi dabeetana waxay tidhi wax walba waan sameeyo waxa laygu yidhi dhakhtar awooddayda waad aragtaa meelna ma tegi karo laakiin markaan dhakhtarradii u geeyey waxay yidhaaheen dhakhtar hishaam la yidhaahdo oo keliya ayuunbaa cudurradaa yaqaana aniguna meel uu joogo iyo waxaan ugu tago midna garan maayo dabeetana ragcadeedii bay iska xidhatay ninkii oohin buu bilaabay intay 2 ragcadood iyo ducadeedii dhammaysanaysayna wuu ooyayey markay dhammaysatay ilmihii hubisay inuu nool yahay haddana ayay tidhi maxaad la oyday wuxuu yidhi maan ogeyn buu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala dadka qaar ducadooda si uu u fuliyo inuu duufaanno kiciyo inuu diyaarado joojiyo inuu dad ka dhigo inay asqoobaan oo jidkoodii ka hallaabaan si uu ugu soo riixo inay hor yimaadaan oo ilaahay subxaanahu watacaala sabab uga dhigo ducadoodii ay ilaahay ka ducaysanayeen inuu u rumeeyo subxaan allah ninkaa waxay diyaaradaha duufaanku ugu kacay ee uu diyaarad kale u waayey ee gaari uu u kaxaystay ee duufaankii uga sii daray ee uu u asqoobay inuu ilaahay iyada iyo ilmaha yar ducadii islaantaa aqbalo oo uu hor keeno ninkaas siday qisaska qaar sheegayaan oo aynaan wakhti hadda u haynin qisadii ku dhacday maxay ahayd imaam axmed ibnu xambal iyo nin roodhiile ah oo moofadiisa ka shaqaysta oo aynaan wakhti hadda u haynin ninkii wuxuu gabadhii ku yidhi abshir ninka hishaam ee laguu sheegay waa aniga oo ilaahay waa ka ay hor keenay qisada waanan rabin inaan ku dheeraado ninkii subaxdii markuu waagi baryey islaantii iyo ilmihii gaadhigiisii buu saaray dhakhtarkiisii buu geeyey wuu daweeyey guri buu u dhisay xataa intii ay noolaayeenna wuu kafaalo qaatay ilaahay subxaanahu watacaala ducadu awoodday leedahay waa taas balse ducadu shuruuday leedahay oo arkaan bay leedahay oo waxay leedahay aadaab bay leedahay in shaa allahu tacaala xalaqada soo socota shuruuda iyo arkaanta iyo aadaabtaynu biraabi doonaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh